seminaarkan aqoon kororsiga ee lagu soo gabagabeeyey macadka qaran ee cilmi baarista iyo daraasaadka SRD Djibouti ujeedada ugu weyn ee seminaarkan ayaa ahayd in la sameeyo horumarin aqoon iyada oo loo adeegsanayo qalab casri ah si loo xoojiyo amba loo helo cilmi baaris iyo waliba baaris casri ah waxaana la aasaasay cilmi baaristan iyada oo baahi weyn loo qabo si gacan looga geysto kordhinta dhaqaalaha iyo horumarka iyo amniga nololeed ee bulshada waxaana hindisaha dooratay in cilmi baaris la taageero hay'adda FAO oo kaalin ka ciyaarta raadinta iyo horumarinta cilmi baarista dalka seminaarkan oo socday muddo 2 maalmood ayaa waxa intii uu socday seminaarkaasi lagu guda jiray fadhiga labaad ee 2 maalin socday ayaa ka qaybgalayaasha waxay ku baaqeen meelaha cilmi baarista lagu sameeyay sidii loo wajihi lahaa danayaasha ayaa sidoo kale wax ka qabashada caqabadaha ugu waaweyn ee arrimaha la xiriira isbaharaysiga nooca kale ah iyo hal abuurka hay'adda isdhaafsiga khibradaha iyo sameynta loo adeegsanayo oo noqonaya mid horumarinaya dalka tababarkan ayaa waxa uu joogay wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabil Maxamed Axmed iyo agaasimaha hay'adda SRD iyo wakiilka FAO Djibouti Emmanuel Gourne wakiilka hay'adda FAO halkaas ka hadashay ayaa aqoon isweydaarsiga waxay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay inay ka qayb qasho aqoon isweydaarsigan waxa ay taageertay oo kale in xafiiska Djibouti ee FAO uu taageero hagar la'aanada ula garab joogo barnaamijyada kala duwan ee Djibouti gaar ahaan barnaamijka waxqabsiga cilmi baarista iyo waliba si loo helo cilmi baarishada oo ay ka faa'iideysanayaan dadka barnaamijkan ka soo qayb qaatay ee socday seminaarkan 2 maalin ah